iyadoo lagu guda jiro diyaar garowga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Galmudug isla markaana guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ay guddoonsiiyeen shahaadooyinka qaar ka mid ah musharaxiinta u tartami doona xilalkaasi ayaa odayaasha dhaqanka dowlad goboleedka Galmudug gaar ahaan saxiixayaasha waxa ay ku baaqeen in doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waqtigeedii aan laga daba marin isla markaana cid waliba oo wax tabanaysa ay ku dhaqanto dastuurka dowlad goboleedka Galmudug nabadoon Cabdinaasir xasan iyo nabadoon maxamed xasan xaad oo kamid ah waxgaradka kulanka yeeshay isla markaana baaqa soo saaray ayaa waxa ay ka warbixinayaan arrimahaasi iyadoona ay ugu baaqeen shacabka dowlad goboleedka Galmudug in la taageero dhismaha maamulka Galmudug kaas oo waqti dheer lagu bixiyay waxa weeye haday dowladda federaalka tahay iyo haday beesha caalamka tahay iyo haday kuwa doorashada raba tahay dhammaanteen dastuurka Galmudug baa naga dhaxeeya asagaan wax ku oggol lahay qofkii ku xadgudbana waxa weeye gacmaha laga qabanaya asagaan wax ku wadaagaynaa baarlamaan baan samaysanay guddoon bay sameeyeen shaqadoodana inay dhamaystiraan baan yaanu rabnaa ninkii musharaxa hadduu madaxweyne ku xigeen rabo baalkii haw tartamo hadduu madaxweyne rabana haw tartamo cid annagu aan ku hor joognaana ma jirto cid aan ku qasbaynaana ma jirto waxa weeye ayagana dastuurka noo dhaxeeya ayagana dastuurka yaa noo dhaxeeya waxa weeye waa xilli aan cidno u dul qaadan karin wax ka leexda Galmudug maadaama 8 bulood aan soo jiitaynay waxaan rabaa dhammaan bulshaweynta Galmudug inaan u sheego inay u diyaar garoobaan dhamaystirka hanaanka Galmudug ee dawladeed oo ay ka dhiman yihiin madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeenka oo wax kale naga dhiman ayaga inaan dhamaystirno soo diyaar uma nihin war dowladda federaalka ay ku soo dhawaada intaas war mucaaradka ku soo dhawow war baalkii loo rajiray beesha caalamka ku soo dhawow war nimankan sulfaha ku soo dhawaada idla in la gardareysto oo xuquuqda ay leedahay siyaasadeed ama shacab lagu gardaroodana anagu taageeri mayno waxaan rabnaa arintaas inay odayaashu qaataan ka garaabaan waxa wada ka dambeeya shaqeeyaana oo shaqadoodu ay muuqato dowrka odayaasha oo muuqdo taas halkaasaan uga gudbaa dawladda inta hadda ka dhisan oo baarlamaanku uu ka mid yahay oo guddoonka waliba anoo aad ugu sii tirtirsiinaya waxaan leeyahay waxa la idinka rabaa xilkasnimo guud ahaan waxaan rabnaa shacabka Galmudug dhibaatada muddada dheer ragaadisay oo ku daba dheeraatay waxay uga bixi karaan waxa laga arkaa dawladnimada waxaan rabnaa inaan xojino inaan taageerno cidii ay ka socolaadahay waxaan rabnaa farta inaan ku fiiqno gardarrada inaanan taageerin inaanan dhexdhexaad ka noqon gar iyo gardaro hanaanka dhismaha maamulka Galmudug ayaa waxa uu soo maray heerar kala duwan iyadoona hadda la filayo dhawaan in la doorto madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ayna isu soo sharaxeen musharaxiin aad u fara badan kuwaas oo intooda badan hadda ku sugan magaalada Dhuusamareeb Maxamed Cabdi Maxamed warbaahinta qaranka Dhuusamareeb